السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا isku soo noqod wanaagsan kuna soo dhawaada sheekadeenii qabyada ahayd ee kun habeen iyo habeen oo noo mareysay qaybtii saddexaad markii ay ninkii ku tuureen badda labadiisa walaalo oo ay ka soo badbaadisay naagtiisa jinka ahayd iyada oo ka xanaaqday falka xun ay ku sameeyeen walaalkooda haddii aadan soo daawan qaybihii ka horreeyay qaybtan afraad ma fahmi doontid daawade linkigana waxa uu yaalaa qaybta ugu horreysa ee description-ka ama commentiga ku xirnaaw janaalkeena Ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid mahadsanid naagteyda oo aad u xanaaqsaneed ayaa tiri walaalaha isla caawa ayaan iyaga iyo macal maraakiibtooda isku duminayaa markaas ayaan ku dhahay qofka mu'minka ah haddii la xumeeyo xumaan kale kuma gudo ee wanaag ayuu ku bedelaa qofkii xumaanta sameeyana kulley naftiisa ayuu halaag uun u soo jiiday oo qof kale waxba kama qaadi karo sidii aan u dajinayay ayay iga ogolaatay inaysan dilin laakiinse waxay igu tiray laazim waan ciqaabi doonaa oo haddaanan dilin xataa ciqaab la'aan ma ahaan doonaan markii aan magaaladii u naqday oo aan dukaankaygii furay waxaan arkay labadan ey oo meesha joogta waana weydiiyey waxay igu tiri waa walaalahaaga tanna waa ciqaabtooda oo walaashayda ayaa sidaan ku sixirtay waxayna ahaan doonaan muddo 10 sano ah cirfiid yahow waxaa dhacday in ay soo dhammaatay muddadii 10 sano ahayd aniga oo usii socda naagteyda walaasheed ee walaalahayga sixirtay si ay sixirka uga soo furto maadaama ay muddadii usoo dhammaatay ayaa waxaan arkay ninkan meesha fadhiya iyo odaygan deerada wato markaas ayay ii sheegeen siday wax u dhaceen anna halkan ayaan fariistay si aan u ogaado dhammaadka sheekadan ee jinni yahow haddii ay ku cajab gelisay sheekadiina dhex martay aniga iyo labadan ey ee walaalahayga ah ninkan dhiigiisa 3 meelood meel ii hibay kadibna jinkii ayaa la hadlay labadii ey oo ku yiri marunba ninkan wuxuu sheegay markaas ayay madaxa ruxeen ayagoo ula jeeda haa jinkii ayaa yiri wallaahi waa sheeko yaab leh aadna way ii cajabisay ninkan dhiigiisana 3 meelood meel waan kuu hibeeyey waxaan hadlay odaygii saddexaad oo baqasha watay wuxuuna yiri jinni yahow haddii aan kaaga sheekeeyo sheekadiina dhex martay aniga iyo baqashan oo ay ku cajab geliso ma ii hibeynaysaa inta ka dhiman ninkan dhiigiisa jinkii ayaa ku jawaabay haa odaygii baqasha watay ayaa bilaabay sheekada oo yiri boqorkii jinniyadow baqashan aad u jeedo waa naagteyda aniga waxaan ahaa nin ganacsada oo safar badan waxaan lahaa hanti badan maalin ayaan baxay oo aan safar aaday waxaana maqnaa muddo sanad ah kadibna waan soo laabtay markaan gurigaygii imaaday waxaan u imaaday naagteyda oo sariirta la saaran nin adoon ii ahaa markay i aragtay ayay inta ay ku hadashay hadal aanan fahmin biyo meesha yaalayna igu soo firdhisay igu tiri ka bax muuqan oo ay noqo isla markiiba waxaan isku bedelay oo yeeshay muuqaal kadibna gurigii ayay iga soo burisay waana iska soo baxay aniga oo isku maleeyo nin qarwaayo sidii aan u soo socday waxaan u imid nin kawaanla ah markii uu arkay ninkii kawaanlaha ahaa wuxuu i siiyey xoogaa hilib ah iyo lafo wuxuuna ii waday gurigiisa markii aan guriga galay ayaa waxay aragtay gabar uu dhalay kawaanlaha waxayna ahayd gabar sixirka wax ka taqaano waxayna dareentay inaan sixranahay waxay ku tiri aabaheed aabbow waxaan i hortaagan ma ahan ee waa nin miskiin ah oo naagtiisa sixirtay waana awoodaa inaan sidiisa caadiga ahayd ku soo celiyo oo aan ka furo sixirka markaas ayuu kawaanlihii ku yiri gabadhiisa waan kuu duceeyey gabadhaydii ka fur ninkan sixirka weel yar ayay biyo ku shubatay oo wax ku akhrisay kadibna igu soo firdhisay waxaan ku soo noqday suuraddii Alle igu abuuray aniga oo isla markiiba gabadha ka codsaday inay iga caawiso sida aan uga aarsan lahaa naagteydii sixirtay waxay i siisay weel biyo ay ku jiraan oo ay wax ku akhrisay iguna tiri markii ugu horreyso oo aad aragto naagtaada biyahan ku firdhi waxaadna ku dhahdaa inta aad niyeysato adiga oo wax magac dhabayo waxaas iyo waxaas isku bedel anigana waan soo baxay oo sidii ayaan sameeyey waxaana ku dhahay baqal isku bedel sidaas ayay baqal ku naqatay waana tan ku soo fiirinayso cirfiidkii ayaa baqashii fiiriyey kuna yiri masax baa sida uu ninkaaga sheegayo madaxa ayay ishaartay oo ay ku tiri haa markaasuu jinkii gilgilay seeftiisa kuna yiri waan kuu hibeeyey dhiigiisa inta ka dhiman markii sheekada halkaas maraysay ayay Shahrizaad dareentay in subaxdii la gaaray wayna aamustay iyada oo joojisay hadalkii u banaanaa walaasheedii ka yareed ee Dunyazaad ayaa ku tiri abaayo maxaa ka macaan badan kana fiican sheekadaada Shahrizaad ayaa ugu jawaabtay tan waxba ma aha haddii la barbar dhigo sheekada aan habeen dambe idiin sheegi doono waa haddii uu boqorka ii ogolaado inaan noolaade
boqor Shahriyaar ayaa yiri wallaahi baan ku dhaartay inaan dili doonin ilaa ay ka dhameyso sheekada waayo waa sheeko aad u cajiib badan sidaas ayayna maalintaas uga badbaaday dilka Shahrizaad habeenkii saddexaad markii la gaaray ayay Dunyazaad tiri abaayo noo dhameystir sheekadii xalay iyo sidii ay wax ku dhamaadeen Shahrizaad ayaa tiri boqorow taajirkii markii naftiisa badbaaday ayuu u mahad celiyay odayaashii iyadoo meeshii lagu kala tagay waxaase tan ka yaab badan sheekadii ninkii kalluumaystaha ahaa markaas ayuu boqorkii yiri oo muxuu ahaa ninka kalluumaystaha Shahrizaad waxay sheekada ku bilowday boqorkaygiiyow waxaa jira nin kalluumaysta ahaa aadna u daaweynaa wuxuuna lahaa xaas iyo 3 carruur ah qof ka faqiirsan magaalada kuma noolayn ninkan kalluumaystada ah waxaa caado ahayd inuu shabaqa maalin kasta 4 mar badda ku tuuro ka badanna wiligiis kuma tuurin maalin ayuu soo baxay wuxuuna imaaday badda iyada oo xilli duhur ay tahay kadib ayuu shabaqii badda ku tuuray ilaa shabaqa moolka badda ka gaaro markaas ayuu isdhahay fiiri wax ma kuu soo qabtay markuu soo qabtay ayuu dareemay inuu culus yahay wuxuuna isku dayay inuu soo qabto si xoogan balse wuu awoodi waayay inuu soo qabto maadaama uu ahaa oday waayeel ah sidaas darteed huurigii uu saarnaa ayuu xeebta geeyay kadibna shabaqii soo jiiday siduu u soo jiidayay markii uu soo bixiyay ayuu wuxuu arkay waxa culus ee shabaqiisa qabtay maanta dhanna uu ku rafaadayay jiididiisa inuu yahay dameer baqtiyay markuu arkay aad ayuu u murugooday asagoo yiri laa xawla walaa quwwata illaa billaah halista risqiga waa mid cajiib ah kadibna mar kale ayuu badda ku naqday oo shabaqii tuuray asaga oo yiri bismillaah xabaar markuu joogay ayuu dareemay in shabaqii wax ku soo dhaceen uuna soo qabtay laakiin waxay noqdeen jawaan ay ka buuxaan dhoobo iyo dhagxaan markii uu odaygii arkay ayuu mar kale aad u murugooday wuxuuna meeshii ka tiriyay gabay oo micnihiisu yahay horkii waayahow bas haddaadan bas iga dhihin iga cafi nasiib uma lehee sii mana samayn karee bas waxaan u soo baxay risqigayga waxaase helay asagoo meyd ah alla muxuu jaahil badan muuqdaa caalim badanna uu qarsoon yahay kadibna mar saddexaad ayuu baddii ku laabtay oo shabaqii ku tuuray markuu dareemay inuu culus yahay ayuu soo qabtay balse nasiib xumo wuxuu soo qabtay qashin iyo dhalooyin odaygii miskiinka ahaa aad ayuu u sii murugooday mar afraad ayuu badda ku laabtay laakiin markaan gacmaha ayuu kor u taagay asaga oo alla baryay wuxuuna yiri ilaahayow waad ogtahay inaanan 4 mar ka badan shabaqaan badda ku tuurin 3 mar waan ku tuuray waxaana ii hartay 1 mar oo kaliya ee ilaahayow wax khayr qaba iigu soo rid wuxuuna yiri bismillaah asaga oo shabaqii badda ku tuuray cabaar ayuu sugay waxaa dhacday in shabaqii uu cuslaaday weliba culays aad u daran ilaa ay ku sigatay doontii yareed oo saarnaa odayga inay la gadoonto kadibna odaygii wixii tabar alle siiyay iyo dadaalkiisa markuu bixiyay ayuu soo bixiyay wixii culayska badnaa balse wuxuu noqday sanduuq maar ka samaysan afkana ka xiran waxaana ku aastaysnaa faraantigii Nabi Suleymaan calayhi salaam wuxuu isdhahay maanta calafkaaga ayaa saan noqday sanduuqan qaad oo suuqa maarta iyo macdanta lagu iibiyo geey waa intaas soo quudkii maanta ka soo heshaaye haddana markuu qaad isdhahay ayuu qaadi kari waayay culays dartiis markaas ayuu go'aansaday inuu furo si uu u ogaado waxaan culayska badan ee ku jira sanduuqa la soco qaybta xigta sheekadeena xiisaha badan ee kun habeen iyo habeen